سعيد بن الزيد رضي الله عنه إسلام باكسو أشكتوتي محايك كسو أشكتوتي دول آن لها أيو بيرتي سيكودر صديتي ولي بعيل كان آني قالي يدو هدامل أقو ساقا اسكاله وبين أبو رشو عثمان بن عفان أمير المؤمنين تاو ياري سعيد وطبعا كي جنة اللو بشاريين كمدا سعيد بن زيد أبا الأعور بركاسولي والله قاسو دعوه يا سعيدو ويا قاسو دعوه سلانتا با قاسو دعوه دغدا وما حي قاسو دعوتي دول iyadu ay leedahay baad qaadatay bay iya la leeyahay oo macal ceelka iyada leh markaasuu ya amiir almu'miniin anu waxaan ka maqlay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo leh dul uu lahayn taaka dul uu lahayn ninka dulmi ku qaata buu nabigu yiri maalinka qiyaamaha waxa lagu cuquubayn doonaa toddobada dhul intoo silsilad loogu xidho ayaa qoorta loo gelino la odhan doonaa jiidoo la kac lamana kici karayo maanuu xadiiska nabi maxamed ka hayo ka maqlay may kula tahay xaq bini aadan inaan dulmi ku qaadan ilaahow hadday igu been abuuranaysa buu yidhi indhaha ka qaad haddilin adoo indhaha ka qaada mooyaane halkaana ay sheegaysa ilaahu ku dil buu yidhi dhulkii uga kacay ha qaadatay buu yidhi siiya waa indha beeshe dam markaasay odhan jirtay way habaarkii saciid baa igu dhacay way habaarkii saciid bin zayd baa igu dhacay iyadoo indhalo dhulkii ay ku sheegatay isaga wareegayso indhala ayay ceelkii ku dhacday ceelkii bay ku dhacday lagamaba soo saarin halkiiba qabrigeyga laga dhigo lagu aasay xaqa bini aadanku ciyaar maaha ma anuu nabi maxamed ka maqlay taaka in la ego dhul xaqa naas ninka gardarro ku qaata toddobada dhul baa qiyaamaha qoorta loo geliyaa oo lagu yidhaahdaa la kacoo jiid lamana kici kara buu nebiguna ma jiidi karaayo maanuu xadiiska nebi maxamed ka maqlay may kula tahay cuhmaanow inaan dhul bini aadan aan xaqdarro kaga qaadan ilaahu hadday igu been abuuranaysay buuhi indhahana ka qaad halkaan ilaahu ku dil buu yidhi abi bakr sidiiq radia allaahu canhu khilaafada islaamka markii loo dhiibay waa markuu nebigu adduunyada ka intiqaalay sal alla alay wasalam wuxuu haa bagaashlu haa dharka iyo badeecaddu suuqa ku iibin jiraa la yidhi alaabtiisii buu qaatoo degtuu saartay cumar baa arkay ninkoo sii socda kaale yaa abaabakar ilaa ayna wuxuu idhi waa shaqo tegayaa oo taladii ummaddoo dhan ba adiga madaxa lagaa saaray madhaleeli oo reerkayga ayaa ii bilin soo anuu ka mas-uul mayo ilaahay weydiin maayo muslimiintoo dhan baa looga dhigay mas-uul madax khaliifata rasuulillaah weeyaan mas-uuliyaddaa uu qabtayna lacag baad ku qaadan meesha ma soo dhigin isagu innaka maanta ka warrama ninka markuu mas-uul laga dhigay dowladda ama xildhibaan loo dooranayo muxuu socdaa bay kula tahay ar muxuu socdaa lacag fiican heshid meelahana si fiican ha u jajabsatid lawaa xildhibaankii baa la odhanaya oo loo bannayn meel walbe iyaku sidaa ma ahayn mas-uuliyadda umay arkayn meesha ciyaalkooga ay ka biilinayaan mas-uuliyadda waxay u arkayeen waa xilligii ummadda nebiga loo khidmaynayey waa adeeg ummadeed ummadday u adeegayaan ilaahay ikhlaaska innakan hayna siiyo abubakar uu yaabay war ciyaalkayga reerkaygina ma haleelaysid oo masaariiftoodii anaa ka mas-uule anna kaa shuuraynaynay adu noqo horta halkaa fadhiiso ma haleelaysid haddee toole waa la shuureeyey waxaa loo shuureeyey maadaamuu 4 reer uu lahaa in baytalmaalka laga siiya masaariif reerkiisa ku filan neef jeexi inuu u kala qaybiya maalin walba reerkiisa hilibkaas iyo raashin ku filan labadii sano ee uu talada ummadda hayay iyo dhowrkii bilood tiisii markay timidee godka lagu riday abibakr sidiiq allaha raalli ka noqdee inankiisii cabdiraxmaan ibni abibakar oo lacag sida ayaa baytalmaalkii yimiday cabdiraxmaan bin cawf oo ahaa maaliyadda ninkii hayay ayuu yidhi lacagtan baytalmaalka ku celi markaasuu yidhi adeer lacagta xaggeed ku waddaa jooji wuxuu yidhi aabba allaha u naxariistay ayaa igula dardaarmoo yidhi hadday taydii noqoto maanta
waxa duuya maanta anigu dhul baan ku lahay magaalada Madiina dhulka iibiya lacagta ka soo baxda dhulka labadii sano iyo dhowrkii bilood ee talada ummadda aan hayay baytal maalka lacag inta leeg baan ka qaadano masaariiftii weeyaane igaga celiya buu yiri inta inii soo hadhanayna ku dhaxal u qaybtama buu yiri Abdurrahman bin Auf yaabay war maxaa leedahay aabba ku dardaarmay sidaas in lacagta lagu celiyo halkee baytal maalka وصدو قاتي ومصاريفتي إنكو أدو قرتين أو رير كستيني لبادي سنادود أيوة بهاي قرنا أيي دولكي أولها مركان يبينينا وحاونا قولة دار من العقتا إن هالكيجي لقاقع علي بيت المال كالقوع عليه عمر بن الخطاب الله كان عمر أوي أبي بكر الصديق أبو بكر وقبرك أبو بكر بدول تقع عمر وعود ما ضحذا أذيك الدبدا إيمان إيسا والله واد دالسوك وقاري من أبو كيد وادنا دالسي أبو كيدي sidaan u leenahay Abu Bakar ugu dayda waadna daalisay buuri labadii sano ee dhowrkii bilood uu talada ummadda hayay waa ninka idigaga celiyay baytal maalka intaas xukaamta zamankeena ka warrama Abu Darda iyo Salman qiso dhex martay baan ii sheegay Salman Farisi buu ahaa radiyallahu anhu wuxuu damcay markaa inuu guursado Abu Darda iyo markaa ونبيغو ولا لو كدغو ولا ليي اخوه الاسلام ايو ku yiri Abu Darda ayo reerka gabadha fiican bay leeyihiin gabadh ordo iga doon waa hagaag marka dibadu ku sugayaan aqalku aqal weyn ma waa aqal yaro Cariisha Abu Darda ba aqalkii soo galo wala soo dhaweeyay oo qoys marka Yaman ka soo guuray oo gabdho wanaagsan Ilaahay siiyay marka Abu Darda baa yiri waxaan inantiina heblaayaan u socnaa oo ayaad u rabtaa walaalkay Salman al-Farisi baan u rabaa marka bay yiraahdeen Salman inantayada siini mayne laakiin adiga ku siinay ku yiraahdeen gabadha waligeedii mar hadduu ku yiraahdo waan ku siiyay uu ku siiyay ogow khalaas waa xaaskaagii laana waa saddexda nabigu yiri saddex kaftankooguna waa dhabtooduna waa dhab islaanay waan ku furay kaftan ma gasho way furantay khalaas nabiga ku salliya inantaydii waan ku siiyana kaftan ma gasho waa sidaad u siisay khalaas wal iyadu billah diinta waan ka baxay qofka haduu yiraahdana waa ka baxay ogow wal iyadu billah marka Abu Darda uu yaabay gabadhii khalaas isaga la siiyay sidoo ugu sheegay walaalkii saaxiibkii Salman ونسوق يا سلمان وسنا عروس بسكو دياريي عروس كوغنا بريغا مبا ادكينا غبدha into la isasiiyo ayaa isla markaaba saxaabiga aqal yar loo tartiibinayay habeenkaaba waqal galay waxayna lacagaha iyo daaraha iyo tumashada iyo hoteelada iyo buuraha la iskala dhacay ma ee macsiyada lagu dhisay maaha nabiyullaahi Muhammad alayhi salatu wasalaam inantiisa Faatima markuu Ali uu dhisayay ayagoo miskiidka ka soo wada baxo isgarab socdo nabigu ku yiri Ali ka waran Faatima hadaan ku dhiso markaa uu sii jeesto oo ka xishooday Faatima waan ku siiyay buudi aroosna waa taysa soo diyaari buu ka yiri oo socday inantiisii buu nabigu u tagay Faatima aabo waan ku dhisay yaad dhistay Ali waan ku dhisay radiyallahu anha way amustay way xishootay markaa bay hadasho aaba ma hadal buu ka yiri Ali baad dhistay ha Ali yar calol buuran yahay haye habeenoodna uu leeyahay habeenkii indhaha aad wax uga ma arkabay ku tiri markaa uu nabigu ku yiri Faatima laqad zawajtuki wa innahu la aqdamu ummati silman wa aktharuhum ilman wa a'zamuhum hilman bukayri Faatima inka aan ku guriyay waa ninka islaamnimada ummadeeda ugu soo horeeyay ugu soo hor islaamay waana ninka ummadeeda ugu cilmi badan waana ninka ummadeeda ugu dulqaad badan buu rasuulku yiri barkintaana qaado qadiifadaana qaado weelka nabiyaha ku dhaansada caawana waan ku hoynayaa diyaar garoob buu ka yiri inagu imika gabdhaha waxba kuma darnee xuma ka sugnaa Soomaa inta badan Soomaalidu markay dhisayso wiilkay kharashka badan ku bixiyaan nabigu inantiisii Faatima markuu dhisay uu raaciyay
barkin buu siiyey gogol buu siiyey weel buu siiyey marka guurkooga u fududaa keena zamankan ee cadaabka maaha oo fududaa noloshu way fududay guurka haddii la fudaydiyay bay culimmadu leeyihiin zinada inay dhalinyaradu ku dhacdo ayaa adkaan haddii guurka la adkeeyo waxaa la fududeeyey ogow zinadii baa la fududeeyey marka guurka inaan fudaydina diyaar ma unahay waa sababta keliya bay culimmadu leeyihiin fasaadkan kula dagaalami karno in guurkana la badiyo in la fudaydiyo welibana salmaan farisi bannaankuu taagan yahay walaalkii abu darda ayuu sugayaa abu darda baa soo baxay markaa salmaan baa yidhi bishaare wuxuu yidhi wixii meesha ka dhacay inaan kaaga warramo waan ka xishoonayaa buu yidhi waraa xishoona ii sheeg maa lay yeelay mise waa lay diiday wanigo gabadhi adiga waa laguu diiday laakiin anaa laysiiyo caroosa buu yidhi anaaba caroosaba markaasuu qoslay oo wuxuu yidhi ka xishoonaya adiga mahe waa aniga buuhi waayo calaf ilaahay adiga kuu qoray calafkaagii samada lagaaga qoray iyo adigan anuna dhex socday buu yidhi ka xishoon adiga maaha buuhi waa aniga ee walaal adigana allaha kuu barakeeyo zamankeen arrintaa ma dhici lahayd waa laysku rogman lahaa soo maha waa adii dhigte iyagu waxaa la baray war adeer amar ilaahay baa adduunka socdaa wixii ilaahay qadarin baa adduunka ka dhici wax kale ka dhici maayo qofka caaqilka waa qofka naftiisa xisaabiya habeenkiibuu xisaabin oo toddobaadkiibuu isxisaabin oo bishiibuu isxisaabin sida dukaanka loo xisaabiyaa la doonayaa inaad wakhtigaaga u xisaabisid ninka saaxiiba dukaanka raysamaalkiisu waa dukaankiisa waa badeecadda weeyaan maxaa maanta iga baxay maxaa ii soo galay qofka bini aadanka raysamaalkiisu waa wakhtigaaga wakhtiguna muxuu ka kooban yahay waa sakan iyo daqiiqado iyo saacado iyo maalmo iyo asaabiic iyo bilo iyo sannado iyo quruun laysku geeyey waa daqiiqado habeen iyo maalin weeyaan waa habeen iyo maalin wajacalna alleyla waannahaara aayatayni famaxawna aayata alleyli وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حصيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا maalmahan habeen iyo maalintan iyo nolosha bini aadamku ay ku taagan tahay sanadku maalin iyo habeen buu ka samaysmayaa usbuucu maalin iyo habeen buu ka samaysmayaa bishu maalin iyo habeen bay ka samaysmaysaa saacaduhu maalin iyo habeen dhexdooday ka unkamayaan bini aadankana qiyaamaha 70 sano haddii aad jirtay 100 sano haddaad jirtay shar iyo khayr waxaad aragtay shar iyo khayr waxaad ku hadlaysay shar iyo khayr waxaad samaynaysay oo lagugu soo qoray buug ayaa qoorta qof walba loo sudhayaa markaasaa la odhan doona iqra' kitaabaka kitaabkaaga adigu xagga ula baxo akhriso kafaa binafsika alyawma calayka xasiiba maanta adaa iskugu filan inaad isxaabiside cid ku xisaabisa uma baahnid isxisaabi adigu maanta banka qiyaamuu isku xisaabiyey xisaabtiisii markuu rogrogay wuxuu soo baxay inuu yahay ahlu naar muxuu samayn markaa waa kaas meel iska soo qabta ma joogaa ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ليتني حرف التمني بو لا يمن دون أولا يا ليت وأدوية إنسان جوج إيمان إلهي أضيعه وما نبي محمد عليه الصلاة والسلام جد كيسي ميان راعو ميان دغن كإسلام كخد دغمو ميان دين إسلام كصدق اتداء نصو صعدو ما أنت وان ليبان لها لكن خلاف كان خلاف إلهي أمر كيسا هي سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام أيها هل كان إدكتيب ليهي ما لسك سوق قبتنا ماله سيدا نكا هبينك نكا الدكان له هبينك وحساب تمي أيها الله دون يا هبينك نفتين له حسابيه عمر بن الخطاب الله رالي كان نقضيه أيها أورنجري نفتين حساب إنت لين حسابين عملكينا
shar iyo khayr waxaad qabateen maalinkii miisaanka saar bowgii qalin qaado subaxdii markaad kacday ilaa gabalku ku dhacayay sharkaagiina qor khayr waxaad samaysana qoro isxisaabi haddaad adduunka dusheeda isku xisaabisid oo adduunka dusheeda camalkaaga miisaanka saaratid waxaad ku fududaanaysaa xisaabta aakhira ku fududaan Allah inoo fududeeyo marka waqtigeenu waa tharwadeeni ilaahayna siiyey yaan dayicin innaga maanta dadkeena zamankan waxay yidhahdaan waqtiga halkeen ku soo dilaa soo ma yidhahdaan gaaladuna waqtiga qiimihiisa intay garteen ayay yidhaahdaan waqtigu waa lacag haddii waddannada reer galbeedka waddada aad ku socotay ay kaa lunto oo jidka aad maraysay aad ka luntid fursad u heli maysid qof inuu isku kaa taago ku tilmaamo dariiqii xaggu kaa xigay ama magaalo u socotay inaad ugu tilmaamo heli maysid waayo wuxuu kule intaa gaadhiga halkaa aan joojinayo waddada dhexdeeda waqti bay ugu socduu ku leeyahay waqtiga qiimihiisii bay fahmeen iyaku deedna adduunyadii bay geliyeen khayraadkii adduunyada ku jiran ilaahay waa u soo saaray falammaa nasuu maa dukiruu bihi fataxnaa calayhim abwaaba kulli shay markii amarkii ilaahay ay halmaameen baraarujintii lagu baraarujiyey diinta markay ka jeesteenay iska dhega tireen baa ilaahay yidhi adduunyadii albaabadeedii baan u furnay baa ilaahay yidhi iyaka waqtigoogii halkay geliyeen dhulka khayraadkii arlada ku jiro dhan bay la soo baxeen waa kuwa maanta adduunka dhan ku guumaysanaya ee ku hogaaminaya innagana maanta muslimiintu wuxuu leeyahay qofkii muslimka waqtiga halkeen ku soo dilaa maanta ilaahay baa lahaa xadiis alqudsi in aadan u aflagaadeeyey uuna idhibayaa in aadan wuxuu igu dhibayaa markuu yidhi ilaahay wiil buu yeeshay ilaahay waxau leeyahay anuu wiil ma lihi oo ma dhalin laymana dhalo mana dhalo keli baan ahay keli ina aadan baa ilaahay leeyahay wuu aflagaadeeyey waa i aflagaadeey wuxuu igu aflagaadaynayaa yasubu dahra wa ana dahru alamru biyadii uqallibu leyla waannahaara ina aadan habeenka iyo maalinkuu aflagaadaynayaa oo zamanka ayuu caayayaa zamankuna baa ilaahay yidhi waa aniga habeenka iyo maalinta anigaaba bedelayo anaa keenaya baa ilaahay yidhi zamanka sidee dadku maanta u aflagaadeeyaan maxaa sidan kuu galay wakhtigaa sidan ii galay ma yidhahdin war ma yidhahdin maxaa sidan kuu galay wakhtiga halkaa i dhigay wakhtiga iga jeestay buu ku odhan wakhtiga iga jeestay wakhtigaa sidaa ay baday wakhtigaa iga xun wakhtigaan fahmi lahay wakhtigu muxuu yahay ilaahay baa kule yasubu dahra wa ana dahru ina aadan zamanka ayuu aflagaadayn uu leeyahy zamankaa iga xun zamankaa xun zamankiibaa iga jeestay wakhtigiibaa iga jeestay wakhtigiibaa adig kula haya maanta ilaahay wuxuu leeyahy zamanku waa aniga amarka gacantayduu ku jiraa habeenkaiyo maalinta anigaaba beddelaya oo keenaya amarkuna gacantayduu ku jiraa kaan faqiir ka dhigana cid qani ka dhigi kari mayso kii aan qani ka dhigana cid faqiir ka dhigi kari mayso kaan kor u qaada cid hoos u dhigi kari mayso kaan hoos u dhigana cid kor u qaadi kari mayso kaan madax ka dhigana cid madaxnimada ka qaadi kari mayso kaan ciseeyana cid ma dullayn karayso kaan dulleeyana cid ma cisayn karayso kaan hadeeyana cid ma weecin karayso kaan halleeyana cid ma hanuunin karayso kaan anigu aan khayr aan siiyana cid shar u keeni kari mayso amarka ayaa leh allah baa leh waxba zamanka ha aflagaadayn waxba makhluuqana ha qabsan oo ha odhan hebel baa halkaa ii galay buu yidhi maalin mid dee iska soo saar hebel baan magaalada ka mari hebel baan magaaladii u daayey buu yidhi haye hebel baa nolosheeda ka xun hebel baa halkaa ii dhigo sidaa ii galay
zamanka adiga kula hayade ana zamanka sida ay kale boqoran sida ma aha qofka muuminka iimaan kala waa inuu umuuraha waa inuu yiraahdaa hadday dhib ku dhacdana waa inuu yiraahdaa dhibaatada igu dhacday waa dunuub anigu aan galay weeyaan adduunka lagaga goynaya hadday barwaaqo ilaahay uu ku siiyana barwaaqada ilaahay baa ku qadaray haddii walaalka ilaahay u nicmeeyana waxaad tiraahdaa nicmada ilaahay ku nicmeeyay hani allaka waan ku haneeyay hadday walaalka balaaye masiiba ku dhacdana waa la tacsiideeyay waxa la yiraahdaa insha Allah balaayada waad ka bixi doontaa walaal qadarka waa inaan aaminna zamanka ha aaminin ayaad aamini ilaaha zamanka abuuray cilaaqo la yeelo ilaahay xiriir fiican haddaan la yeelano nolosha adduunku way noo macaanaan maanta dadka oo dhan waxay leeyihiin nolosha waan fahmi laanahay nolosha waxaan u fahmi laanahay waa maxay xiriirkii innakii ilaahay noo dhaxeeyay baa meesha ka baxay xiriirka haddaan hagaajisano nolosha adduunkan iyo aakhira ilaahay baa noo hagaajin ilaahay baa quraankiisa inoogu sheego yiri waman yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra qofka ilaahay ka baqa ilaahay ka cabsada umurtiisa oo dhan waxaan ka dhigaynaa fudayd man kaanat ad-dunya hammahu ja'alahu Allahu al-faqra bayna 'aynayhi wa farraqa Allahu shamlahu wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu ba nabigu yiri qofka hamigiisa ka dhiga adduunyo waxa uu ku fikirayaa waa adduunyo waxa uu ka shaqeynayaa waa adduunyo waxa uu ku seexanayaa waa adduunyo waxa uu ku soo kacayaa waa adduunyo waxa uu ka hadlayaa waa adduunyo waxa uu eegayaa waa adduunyo qofka hamigiisa adduunyo uu ka dhiga buu nabigu yiri arrimihiisoo dhan ilaahay bariga galbeed buu kaga kala sheedhinayaa nolosha adduunyadana faqri baa labada indhood loo saarayaa faqri weligaana ka baxayn baa labada indhood loo saarayaa arsaaqadana inta ilaahay u qadaray mooyaan in kale ma helo buu rasuulku yiri waman kaanat al-aakhiratu hammahu ninka hamigiisa ka dhiga buu nabigu yiri aakhiro macneegu waa maxay yani meel kastuu joogo ilaahay buu kaga cabsoonayaa salaadii buu ilaalinayaa soonkii buu ilaalinayaa xaqii dadku iska ilaalinayaa xaqii jaarkiisu ilaalinayaa xaqa dadku la nool yahay buu iska ilaalinayaa dambigu yar ilaalinayaa wanaagga ayuu ka shaqaynayaa hamigiisu aakhiro amal aakhiradiisa ka dhaawacaya waa ka digtoon yahay amal aakhiradiisa badbaadinayana wuu dhiiran yahay qabanaya mar walba ninka hamigiisa ka dhigay buu nabigu yiri aakhiro qalbigiisa ilaahay ka dhiga qani hodantinimada qalbiga ilaahay siiya qofku meesha uu ka noqdo ciidna waa qalbiga meeshu qani ka noqdana waa halkee waa qalbiga lagu aan moodin hebel waa nin milyaneer warqadahan maaha waxa bini aadanka qalbigiisa qinada gelinaya qinada qalbiga waxa geliya waa markuu qalbigu u jeesto ilaahay macrifadiisa iyo aakhirada weynigeeda hamigiisa ninka ka dhigay buu nabigu yiri aakhiro qalbiga ilaahay hodantinimo uga buuxiya arrimihiisa oo dhan ilaahay baa isku soo ururiya adduunyaduna iyadoo dulaysan oo u san dulaysan ay hoos timaada buu rasuulku yiri adduunyadu muuminka way doondoonan harkaaga ma aduu ku daba socda mise adaa daba socda ya saa ku daba socda har adduunyadu baa leeyahay qofka adduunyadu waa sida harka adduunyadu diintay la socotaa adduunyadu aakhiraday daba socotaa haddaad tiraahday adduunyada ayaan u jeesan oo aakhiradii baa ka jeesan waxaad la mid tahay nin yidhi harkayga ayaan soo qabanayaa ma soo qaban karaysid walam yaatihi min addunya ilaa maa kutiba lahu baa nebigu yidhi ma helo qofka hamigiisa adduunye ka dhiga ma helo buu nebigu yidhi ilaa wixii ilaahay u qadaray maan wax kale ma helo marka adduunyadan ilaahay baa nagu dhex abuuray oo inagu dhex imtixaamaya marka adduunyada ka tagana diinteenu inama leh hada ogaada adduunyada ha ka shaqaysan laguma leh ka shaqayso laakiin qalbiga ha gelin taajir noqo laakiin adduunyadu qalbiga inay kaa gelin dhakhtar noqo laakiin lacagtu qalbiga inay kaa gelin mas'uul noqo laakiin adduunyadu qalbiga inay kaa gelin waxaad noqotaa bay yidhahdeen culammadu sida doonta waxaa loo isticmaalaa bariga mise badda maxaase laga ilaaliyaa biyo inay galaan hadday doonta iyadoo badda maraysa oo rukaab iyo badeecad la saaray ay biyo galaan iyadii waxaa saaranba way qarriqmi soo ma qofka bini aadanka adduunka inuu ku noolaado ilaahay baa ugu talagalay inaad shaqaysataa ood wax barataa oo taajir noqotaa
oo dhakhtar noqota oo injineer noqota oo caaqil noqota ilaahay baa kuugu talagalay noqo laakiin adduunyadu qalbiga inay kaa gelin hadday adduunyadu qalbiga ay kaa gasho adiga iyo waxa ku saaranba waad degiyo ogow dad badanba maanta way degeen abubakar sidiiq radia allaahu canh maal qabeen buu ahaa ninka ummadda ugu khayr badan buu ahaa cabdiraxmaan bin cawf maal qabeen buu ahaa tobankii jannada loo bishaareeyeyna ka mid buu ahaa cuhmaan binu cafaan maal qabeen buu ahaa tobankii jannada loo bishaareeyeyna ka mid buu ahaa jariir binu cabdillaahi albajali ogaas buu ahaa saxaabada nebi maxamed ragga ugu qiimo badan buu ahaa saxaabada rasuulku tujaar bay lahaayeen cuqaal bay lahaayeen shucaraa bay lahaayeen dhakhtarray lahaayeen umaraa bay lahaayeen fuqaraa bay lahaayeen mucallimiin bay lahaayeen culamay lahaayeen ogaasyay lahaayeen laakiin marka la eego aakhirada iyo diinta xaggaa way ka wada sinaayeen iyagu xaggaa way ka wada sinaayeen kooga amiirka ilaa kooga ma'muurka si midaatay ilaahay uga wada baqayeen si midaatay aakhirada ugu wada fikirayeen cabsida ilaahay ay ka baqayaan iyo aakhirada ay ku xisaabtamayaan waxay u dhib yaraysay ma taqaanaa inay adduunka dusheeda xaqa ilaahayna iska ilaaliyaan xuquuqda bini aadamkana iska ilaaliyaan aakhirana ay tagaan iyagoo aan waxba lagu lahayn waxaasi waa alla ka baq waxa bini aadamka xaqooga kaa joojinaya waa maxay waa alla ka baq markaad ilaahay ku xisaabtamaysa inuu ku arkaayo uu ku maqlaayo aakhira inay jirtana ay ku hor taallo xaq bini aadan inaad u badheedhaa ku dhiiran maysid laakiin goormuu qofka bini aadamku ilaahayna uu dulmi ka galaa bini aadankana uu dulmi ka galaa waa markuu ilaahay iloobo aakhiradana uu khadka ka saaro saa darteed walaalayaal ilaahayna hanu soo noqonno ha toobadkeenno in yar baan adduunyada joogaynaa in yar وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت بري تولي نوال بوحا ولا كل مدونة كما ورقبو ماشا قبرقاق ونقون كما ورقبنو بركا ولا الوين عن آخرك حسابتنا آخره مديرو إنهم يرونه بعيدا ونراه قريب إلهي بأشيء قيامه مديرو حقنا وكادر يحي لكن نظامك إلهي مرك الله في ريارنت واسدودهي بعثت أنا والساعة كهاتين لولا فرض نبي اسكو درريي فردا يا مردسدا يا فرد حدا ابو نبي اسكو قبتي مرك ابو نبي يري انا يا ساعه قيامته سدا لبدا فرض اسكو خيغان بان اسكو خيغنا ابو رسولك يري مرك إلهينا هنو سو نقنو هكبغنا إلهي قولوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله diinteennana ma aragtaan aan ka shaqayno oo shaqada diinta culimada iyo macallimiinta oo kaliya ka mas'uul maahinaya jamaacadade qof kasto muslima diintan xilba ka saaran inaad naftaada islaaxisaa waa waajib inaad ummadda islaaxigana dadaalka aad ka qayb qaadataana waa waajib dacwa ila allah fariidatun sharciyya wa daruuratun bashariyya bayna culimadu dadka ilaahay xaqiisa loogu yeedho waa fariida sharciya weeyaan waana daruura bashariya bashariyadoo dhan baa maanta dacwadda u baahan muslimkii baa u baahan in salaada loogu yeedho oo maskiidka loogu yeedho oo xalaqaadka loogu yeedho oo diinta loogu nasteexeeyo gaalkiina wuxuu u baahan yahay in iimaanka iyo islaamnimada loo bandhiga buu u baahan yahay mas-uuliyadana xilkaana nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa ummaddiisa saaroo yidhi laa nebiya bacdii walaa ummata bacdakum alaa falyuballiqa shaahid minkum alghaa'ib aniga nebi igama dambeeya buu nebigu yidhi ninkana ummadin igama dambaysee kiina xaadirkee maanta ila joogow kiina maqan gaadhsii faruba muballaqin aw caamin saamicin iyo kuway maqlayeen saxaabadu intay nebiga ka maqleen bay adduunkao dhan gaadhsiiyeen halkii maalintii risaaladda ay gaadhsiiyeen baa la yidhi inay ka soo noqoto mooyaane halkii ay dhigeen bay taagan tahay maanta insha allah innaguna in diinteenaan ka shaqayno wada niyooda insha allah habeen dambana waa jimce markaska ka soo qayb gala kulanka diinta waliba xaafadiinnan markaskuu nii dhow yahay
ومرك إلهي درتي وبح لي نجيد أذنها عبسونين يسكبح وارما بحينه نبى الله واجد حنوك كورونا اللي بنبونين أي هذه كورونا لقاها لي أفر تبع شقولك كجر مو فدي مسوق بحي وكجري متبع الشيء إسلام تيسيكود هاي سودوان عيالك هاي سودوان أنا أقول هالصعدو أفر تبع شوفر يستقول دحدي سو هرجبك وقبحه قلبي نين أديده كبحضه وعظمة مخلوق كبحضه والزمن كأن كنت تعلق صنها أن سيدينه وحريرك إلهي أن صوت كيسنه أفر بلادنا المسجد أحفر وما بهنين ومسجدك والراحة ولي بنا صومه هذا أنت إيرا ساعدنا ودهل لنا إمسا الدارين كينو زيادة يا إمسا أنيق الدارين كينو سبدل يا إلا وحن قال لنا ودينه بركة إن شاء الله بليالا إن شاء الله وقت يقولوا فرصة يقولوا إن بالجماعة هذا إلهي درتي وبحايا أفر بلود لبا بلود فصح يد عن هيستو إن إلهي درتي وبحو يا بليوني إن شاء الله إن شاء الله هذا للوسائل حكم المقاصد بعلمة إليهم مددا لبحايو ووسائل الدعوة وسائل سيدا آلات كنيمك نقضوا بيسان إنكم مجع عليهم بريقوا هري لكن برياهن وحيد هذين والله بهاي هيسك هاللون لأنكم نوحي لين صور نحمريا خير ومضى ونشيقنا إن شاء الله هذا إلهي نقا أقبلنا ورجينا قبول يدا مهمة إمسا كود دقيستو كود دعوتي مهمة إلهي مكها أقبل يبقى مهمة مثل كوسو عشي إلهي نقا أقبله إن شاء الله هبين دمنا فكر ديك وكسو قيب قلنا ضد بدن ولا لهنا وحنوسا هي جرد عدونا سأدعين مين إن شاء الله فاتحة دورة أمرا فاتحة قف والبا إن شاء الله هلكو ككر بيسان يهين إلهي كربضا كنقاضو هلكو كعبنا يحنون كهاين إلهين والضبيلها كالراعيو لأن القرآن هو الدوو دعاء مؤمنين تأسكد دعين إن شاء الله ومقبولة إلهي بأنك أقبليه هرتبل سورة الفاتحة وأخريها